برصابك قبل كساحل جامع يوسف أحمد يماير كدقمة بربرة عبد الشكور محمود حسن عدن أيام أنت سوى ذا شراء ودق حدقي حرنا يرد دون تو أورور كدن يرد الصيكا وحركة سوق قلي هالكاسي أورور كدن يرد الصيكا قار كتر سنح اللي بنا قلها الدجان كيجور تدا وجورينا وحال هالكاسي كهاد لي ماير كدقمة بربرة يبرصابك قبل كساحل soo reebi lahayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku talaabsaday si ay dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland u tahriibin wax qabadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland bay horumarkii bay kamid tahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaanan u ballan qaadaynaa meesha dhalinyarada inaan hiil iyo hoob la garab taaganahay in kastoo day ogahay gudoomiyaha degmada ee Berbera Cabdishakuur in uu heelayahay dhalinyarada iyo gobolka degmada Berbera sidoo wax ugu qaban lahaa ama horumarin lahaa aad baan ugu mahadnaqayaa kaalinta ugu weyn oo ka qaadan doona kulay annaguna kaalinta ugu weyn baan ka qaadanaynaa ganacsatada waxa looga baahan yahay kaalinta ugu weyn ka qaataan ururada shaqaalaha waxa looga baahan yahay inay bilbil u huraan dhalinyarada si ay meeshaas ugu hirgasho soyka aynu halkan u dhagax dhigno goobtan waa goobta gobolka saaxil ama degmada Berbera meesha ugu qiimaha badan waxaan leeyahay barsaabkii midigta taagan wuxuu naftii u horay xafiiskii gobolka halkii ugu habooneed inuu ogolaado in ururka dhalinyaradu ay ka howlgalaan aad baan gudoomiyaha gobolka ugu hambalyeynaa hal qodob ma naga faa'iideysanayaa dhalinyaray guushaadu waa hor socod ha eegin hareerahaaga haddaad hareeraha eegtid iyo xagga dambe ma guuleysanaysid waxa mar walba ku barbar cararaya waxa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay dhagax dhigani una mahad celiyay maamulka gobolka saaxil qaar ka tirsan ururka dhalinyarada ee Soyka aliyafka ururka Soyka waxaan kala runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii dhulkan isagu ogolaanshihiisa bixitaankiisa markaa ogolaaday waxa leenahay madaxweyne abaalkaas dhalinyarada ku haysaa aad iyo aad ugu mahadsantahay wasiirka howlaha guud mudane cali isna waan u mahadnaqaynaa oo isna processkii hantida dhulka qaabilsan barsaabka gobolka jaamac joogna laakiin laba kelmadood baan ka oranayaa qiimaha ee dhulkan runtii leeyahay halkan waxa lagu shaqeyn doonaa horta 50 kun oo dhalinyaro gobolka saaxil lagu shaqeynaya maaha meel shakhsi leeyahay maaha meel Axmed Abubakar leeyahay maaha meel Cabdishakuur leeyahay meel jaamac leeyahay maaha waxa weeye dadkaas oo dhan ba ka dhaxaysa shaqo abuur ba ka sameysmaya DB walba imika inoo soo socotay horumarkii meel markaa dhalinyaradu ku shaqeyso oo xaruna ka wada faa'iideystaan noqon doonaan dad baa wax ku baran doona canshuur bay qaranka u soo kordhin doontaa dhaqaale degmada u keenaysaa bilic iyo horumar bay magaalada ku soo kordhinaysaa meel aan ugu faano gobolada kale ana xarun dhalinyaro magaaladu leedahay ay noqonaysaa Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Soomaali News TV magaalada Berbera.